Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhowaada saaxiibada Manshil Media. Waxaa laga yaabaa inaadan maqal ama aadan arag wiil Soomaali ah oo galay kabcada gudaheeda. Xasan Alwaajidi waa wiil Soomaaliyeed, waxa uu ku noolaa dalka Sacuudiga. Waxa uu ka shaqayn jiray tagsiile. Waxa uu arkay kabcada oo ay dad badan ku urursan yihiin, waxaanay xaramka ku wada kulmeen wiil Soomaali ah. waxa uu ku yiri ii sharax kabcada. waxa uu ku yiri waa meesha Allah subxaanahu wa ta'aala uu dhulka ka doortay, waxaana maanta loo furay madaxweynayaasha dowladaha islaamka. kabcada waxaa hareeraha oo dhan jooga askar aad u badan, waxaana aad u adag in la galo. kaliya waxaa geli kara dadka loogu talagalay. Xasan Alwaajidi waxa uu wiilkii ku yiri waxa aan rabaa inaan galo kabcada gudaheeda ee kabaha ii qabo. waxa uu tukaday 2 ragcadood, waxaana Allah subxaanahu wa ta'aala uu u sakhiray inuu galo kabcada. sida aynu dhammaanteenba aynu wada ogsoonahay, kabcadu waa meel barakaysan, waxaana gala intii Allah subxaanahu wa ta'aala uu u qoray in ay gudaha u galaan. Xasan Alwaajidi sidaas ayuu kaga mid noqday dadkii galay kabcada gudaheeda. dadka badankood waxaa laga yaabaa inaysan garan Cabdi Bile Cabdi waa orodyahan Soomaaliyeed kuna weyn qulubta Soomaalida. waxa uu noloshiisii yaraantiisii ku soo qaatay magaalada Lascaanood, halkaas oo uu ku dhameeyay dugsigiisii hoose dhexe. dugsigii sare waxa uu ka dhigtay magaalada Muqdisho. Cabdi Bile Cabdi waxa uu aad u jeclaa kubadda cagta, waxaana uu muddo ku soo dhex jiray ciyaaraha kubadda cagta, waxaana uu u beddeshay ciyaaraha fudud ee orodka. Cabdi Bile Cabdi waxa uu dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiyay in uu noqdo shakhsi ku guuleystay ciyaaraha orodka ee Olombikada ee lagu qabanayay Roomo sanadii 1987. waxaana uu noqday shakhsigii ku guuleystay iyadoo magac iyo sharafta Soomaalida kor u qaaday.